Soomaaliya waxay gashay sanad cusub 2018 inkastoo sansaan nabadeed uu dalka ka hana qaaday haddana waxaa taagan khilaaf u dhaxeeya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya warbixintaas waxay noo eegayay wariyaheena Maxamed Baashe Khaliif 2018 sanadka cusub Soomaaliya waxa uu dhashay iyadoo guul laga gaaray dejinta dalka balse khilaafaadyo siyaasadeed ay wali oogan yihiin 28 sano ayuu dalka Soomaaliya ku soo jiray burbur dagaal sokeeye dib u dhac dhan kasta laakiin isbeddello u muuqday soo kabasho ayaa si tartiib u soo socday waa laga soo kabtay burburkii intii badnaa waa la soo fuulay sallaan la isku qancin karo isku tanaasul iyo dulqaad la muujiyo shirarkii Soomaalida u soo socday waxay intooda badan ahaayeen gogoldhig lagu baranayay qori isku dhiib siyaasadeed iyo mid bulsho dib heshiisyadii soo socday ilaa 1994 waxay sal adag u noqdeen in la isku dhiibo midba midkii xigay 24 doorasho ayaa ka dhacay guud ahaan Soomaaliya ma dhicin hal doorasho oo dhig ku daatay waxay ahayd bisayl siyaasadeed oo ay dadku muujiyeen Soomaaliya 6 madaxweyne ayaa maamulka isku wareejiyay ilaa 1990 waxaana taasi ifisay oo dunida tustay soo kabasho siyaasadeed iyo in la isku hambaliyeeyo sawirka cajiibka ahaa ee sanadkii tagay waxa uu ahaa 3 madaxweyne oo Soomaaliya xilal ka soo qabtay kuwaas oo isxigxigay oo haddana isu hambaliyeeyay dhanka Somaliland sidaas si la mid ah xilka ayaa ay u kala dambeeyeen 3 madaxweyne ay hal goob ay isugu hambaliyeeyeen khilaaf u muuqday oo sanado soo jiray kaasi oo ka dhex oognaa madaxda sare ayaa u muuqda mid laga gudbay madaxweyne Farmaajo ayaa muujinaya in isaga iyo ra'iisul wasaarihiisu ay shaqo qaran wada hayaan waxaana meesha ka sii baxay khilaafaadkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa xasilooni nabadeed laga dareemaya dib u dhis ayaa muuqda rajada shacabka ayaa soo noolaanaysa waxa markii ugu horeysay shacabka iyo dawladdu muujinayaan isku duubni dhanka amniga iyo horumarka dalka sanadka cusub ee 2018 wuxuu Soomaaliya u bishay iyadoo ay xasilooni nabadeed guud ahaan dalka ka jirto laakiin khilaafyo siyaasadeed ay muuqdaan hayaanka Soomaaliya ee 2018 waa mid tub wanaagsan haya haddii Soomaalidu ku baraarugto dib u dhaca oo laga soo gaban karo waxa suurtagal ah in dib loo hanto karaamadii qarannimada dalkeena Maxamed Baashi telefishinka RTN Nairobi